Asalaamu calaykum daawadayaal. Halkan waxaan idinka soo jeedin doonaa idinkana sharxi doonaa filim Robot Science Fiction ah kaas oo lagu magacaabo Robot 20. Fadlan daawade channelka subscribe. daawade muuqaalku wuxuu ku bilaabmayaa nin da' oo weyn oo tower koraya damcayana inuu naftiisa jaro oo iska soo dildilo laakiinse waxa hareerihiisa duulaya shimbiro aad u badan tiradoodana aan la qiyaasi karin iyagoo ka soo horjeeda inuu ninkaasi isdildilo naftiisana jaro. dhanka kale Dr. Mustafa wuxuu ku mashquulsan yahay shaybaarkiisa isagoo sameynaya robot u dhaqmaya sida bini'aadanka oo kale lana saaxiibaya bini'aadan isagoo robotka ka dheeganaya kana sameynaya robotkiisii hore ee lagu magacaabi jiray Mascular. waxaanu ku soo bandhigayaa xarun maalmaha ka mid ah arday jaamacadeed ayaa soo booqanaysa shaybaarka amba laabka Dr. Mustafa iyaga oo halka ay ku soo dhaweynayso gabadh lagu magacaabo Big Mountains. gabadhii wiil ardaydii ka mid ah ayaa aad ula dhacaya quruxdeedana ka helaya waana soo jiidanaysa laakiin Dr. Mustafa ayaa saxaya oo odhanaya maaha qof caadi ah ee waa kombiyuutar ha ku khaldamina balse ardaydu iyagoo qaadan la in qofkani kombiyuutar yahay waayo bilaadan ayuu aad ugu eg yahay doctorkuna wuxuu u sheegayaa inuu isagu ku farayaraystay una dhigay hab bilaadan oo kale. haddaba markay ardaydii fiisidkoodii dhammaystaan ay ku yimaadeen laabka Mustafa wiilkii wuxuu aanbabaxaya xagga iyo gurigoodii mooto isagoo wata si lama filaana ayaanay u dhacaysaa moobilkiisii oo uu ku hadlayay inuu hawada galo oo uu duulo kadibna moobilkii oo sidii shimbir oo kale u duulaya ayaa hortiisa imanaya waxaana iskriinka moobilka ka muuqanaysa shimbir cadhaysan oo duulaysa. muddo daqiiqada marka uu moobilka wiilkii hortiisa meeraysto waxaa dhacaysa inuu moobilkii hawada galo oo uu sidaa ku baxoba. intaa kadibna waxaa dhacaysa in magaaladii moobilo ciidda ka fara badan oo malaayiin oo hawada duulaya la arko. dhanka kale Dr. Mustafa oo xaaskiisa la hadlaya una sheegaya inuu shaybaarka ka shaqaynayo lana shaqaynayo gabadhii la odhanayay Big Mountains ayaa moobilkii uu ku hadlayay si kadisa gacantiisa uga baxaya kadibna moobilkii hawada ayuu gelaya waana duulaya. haddaba ama kaag iyo fajac ayay ku ridaysaa dadkii in moobiladoodii gacmahooda ka baxaan hawadana galaan duulaanna sidaana ay ku waayaan. dad ciidda ka fara badan ayaa imanaya saldhigyada ribood garaynayana inay moobiladoodii waayeen. waaxda amniga ee booliskuna waxay ka codsanayaan shirkadda isgaadhsiinta ee dalka inay baadi goobto moobiladan dadka ka lumay gacantoodana ka baxay. si kastaba ha ahaatee shirkaddii isgaadhsiinta uma suuroobayso inay hesho goobta ay ku sugan yihiin moobiladan la waayey sababtoo ah moobiladoo dhan way bakhtiisan yihiin waana dansan yihiin. dhanka dowladdana guddi ka kooban madax iyo aqoon-yahano ayaa loo saaraya arrinkan kana fadhiisanaya falaqaynayana cilmi baadhis iyo dabagal badan kadib saynisyahanadii waxay soo saarayaan warbixin sheegaysa in dhacdadani salka ku hayso samaynayaanna bini'aadanku. warbixintu waxay meesha ka saaraysaa inay jiraan awoodo bini'aadanka ka baxsan amaba alien ka timi xaggeeda. ganacsade leh shirkad ka ganacsata moobilada tafaariiqaysana ayaa wuxuu ka dalbanaya magaalo kale xajmi aad u badan amba tiro aad u badan oo moobila ah si uu ugu kabo khasaarihii ka soo gaadhay dhacdadan. waxaase dhacaysa gaadhigii xamuulkaha ee siday moobilada sidaadu magaalada u soo galo dhacdo dhakafaarkeeda leh iyadoo dhammaan moobiladii uu gaadhigu siday ay ka baxayaan qaybta dambe ee gaadhiga islamarkaana jaha isku mida ay u dhaqaaqayaan. waxaanad mooddaa in la hogaaminayo meel isku midana laga wada hagayo laakiinse mucjisada ugu weyni waxa weeye dhammaan moobiladii ka baxay gaadhigan waxay ku jahaysmayaan aadayaan gurigii milkiilihii lahaa iyaga loona soo raray waxayna si toosa u gelayaan qolkii hurdada ee uu hurday iyaga oo isa soo safaya amba isku soo taxaya gidaarka hareerihiisa. ninkii ganacsadaha marka hurdada uu ka tooso fajac iyo layaab ayaa ku dhacaya wuxuuna isku dayayaa inuu moobiladii gacmihiisa ku kala qabto si uu uga dhex baxo oo uu dariiq u samaysto balse uma suuroobayso. ugu dambayna moobiladii iyagoo midmida ayay afka ka gelayaan jidhkiisana dhex qaadaya waanu dhimanaya. isla subaxiiba Dr. Mustafa markuu warbixinta helo wuxuu ku sakalahaya gurigii ninkani ku dhintay si uu u baadho dhacdadan. waxaanu Dr. Mustafa qolka koonahiisa ka helayaa jajab yaryar oo ka hadhay moobiladii. ugu dambayna wuxuu warbixintiisa ku soo gabagabaynayaa cid kaste ama wax kasta oo ka dambeeya arrinkan inay yihiin qaar neceb moobilada kana soo horjeeda. kadibna Dr. Mustafa markuu laabkiisii ku noqdo wuxuu samaynayaa inuu moobilkiisii furo uu geliyana tracker si uu dabagal ugu sameeyo marka uu moobilkiisani ka baxsado. wax yar kadib Dr. Mustafa siduu rajaynayay moobilkiisii waa ka faramaroosamaya gacantiisana wuu ka baxaya waanu duulaya.
tiktorkina isagoo isticmaalaya aalad u gaar ah ayuu ku tiraysgareynaya kuna dabagelaya moobilkii uu geliyey trackerka. ugu dambaynna dabagelkiisii wuxuu ku soo gabagaboobayaa tower weyn, halkaas oo uu kala kulmayo signal aad u badan xoogganna. wax yar kadibna moobilo aad u badan ayaa iyagoo duulaya bar iskugu wada imanaya cirka ah. dhammaan moobiladina marka isku yimaadaan bar qura, isku togoodina wuxuu noqonayaa mid sameey hal moog oo aad u weyn oo ah shimbir lehna ciddiyo aad u waaweyn. isla markaa shaygii samaysmay ee lahaa muuqa shimbirta waxa uu si cadho leh u burburinaya una jibaaxaya taawarkii, dhulkana ugu tuuraya. intaa kadibna waxay moobiladii weerar ku qaadayaan nimanka ka ganacsada moobilada iyo shirkadaha isgaadhsiinta, iyada oo moobiladu ay samaynayaan samaysyo kala duwan, waxaanay mid mid u dilayaan nimanka ganacsadayaasha ah. haddaba waxay dowladdu garowsanaysaana in arrinku siday filayeen uu ka daran yahay kana adag yahay, waxayna iskugu yeedhaysaa saynisyahanadii iyo aqoon-yahanadii si ay xal u sameeyaan, fikirkii lagula dagaalami lahaana u keenaan. dowladduna waxay damcaysaa inay ciidanka milatariga u dirto walaxdan amba aaladan ka samaysmatay moobilka ee burburka iyo khasaaraha aan la soo koobi karin geysanaysa. laakiinse waxaa fikirka ka soo horjeesanaya doctor mustafa, waxaanuu doctor mustafa tilmaamayaa bini'aadanku inaanay ka hortegi karayn iskana caabin karayn aaladan wax kasta oo ay sameeyaan. beddelkeedana wuxuu soo jeedinayaa mishiinkii robotkaha ee lagu magacaabi jiray muscular in dib loo activate gareeyo. si kastaba ha ahaatee, soo jeedintiisaasi golaha diidmo ayay kala kulmaysaa, waayo mishiin robida oo noocana halistiisa ayaa badan waana la madnuucay. intaa waxaa dheer in macallinkii doctor mustafa uu dilay muscular robot sannado ka hor, macallinkaasna wiil u dhalay ayaa golaha ka mida fadhiyana. labada fikir ee goluhu soo jeediyeenna midna ma raacayo isagu. dood iyo gorfayn adag kadibna goluhu aqlabiyad ayuu ku laalayaa qorshaha doctor mustafa. laakiinse doctor mustafa iyo big mountain gabadhii lagu magacaabayay ayaa waxay u dhacayaan madxafka iyagoo iska indhatiraya go'aanka golaha, waxayna ka soo hadayaan mishiinkii robidka ahaa ee lagu magacaabayay muscular. balaankii ay dib ugu activate garayn lahaayeenna way bilaabayaan. kadibna waxay dowladdu army forceska u diraysaa xarunta dhexe ee batroolka si ay u difaacaan dadka. hase yeeshee moobiladii waxay dhammaantood burburinayaan, baabiinayaanna ciidankii iyo taangiyadii ay wateen. isla daqiiqad gudaheedna dhulka ayay ku darayaan. sidoo kale sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ayaa waxa soo weeraraya moobilkiisa, waxayna cisbitaalka qaybta ka howlgasha gargaarka degdega isku dayayaan bukaankan inay badbaadiyaan, balse hawshoodu halbacaad kulis ayay noqonaysaa. dhacdadanna waxay mucjiso ku noqonaysaa madaxana weyneynaysa wasiirka arrimaha gudaha oo ku sugan goobta, wuxuuna si degdega u wacaya doctor mustafa si uu ugu fasaxo inuu robidkii muscular la odhanayay dib u active gareeyo. wuxuuna wasiirka arrimaha guduhu u ballanqaadaya doctor mustafa khasaare kaste oo uu soo geysto muscular robotku inuu isagu mas-uuliyaddeeda qaadayo. isla wakhtigaana dad badan ayaa isa soo tumaya goobaha lagu iibiyo moobilada iyaga oo isku dayaya inay moobilo iibsadaan, waxaana ilaalinaya ciidamada dowladda. balse waxaa dhacaysa moobiladii dhammaantood inay isku tagaan iskuna yimaadaan iyaga oo samaynaya shimbir weyn oo cadhaysan. shaygii qaabka shimbirta lahaana wuxuu weerar ku qaadayaa dhammaan dadkii moobilada iibsanaya iyo ciidankii, waanu baabiinaya. nasiib wanaag waxa goobtii si degdega u soo gaadhaya muscular robot isaga oo fidinaya kala jiidayana shabag weyn si dadka shimbirta ka soo daadanaya ay ugu duldhacaan una badbaadaan. muscular wuxuu dagaal ba'an la gelayaa shimbirtii, dhowr gantaal oo uu ku ridayna wuu la waayaya. ugu dambaynna waxay shimbirtii xanaaqsanayd afka gashanaysaa muscular iyo gaadhigu watayba, waanay liqaysaa. dhacaysa inuu muscular ka helo caloosha shimbirta taangi ay ku jirto gaas, wuxuuna samaynayaa inuu taangigii ku qarxiyo caloosha. kadibna qarax weyn ayaa dhacaya, shimbirtiina baabiinaya, isaga oo sidii kaga soo badbaadaya shimbirtii caloosheedana kaga soo baxaya. balse muscular robot mishiinka ku xidhan wuxuu xasuusinayaa inuu baawer low yahay, dabkuna dhacsan yahay. muscular isagoo baadigoobka ku jira goobta ugu dhow ee uu ka heli karo koronto amba dab oo dib ugu rijaaj gareeyo baytarigiisa ayaa wuxuu ku soo baxaya xarunta space stationka kuna rijaaj garaynaya baytarigiisii. dhanka kale wuxuu aqoonsanaya amba fahmaya in shimbirtii ay dib uga samaysmatay hadhaagii moobiladii, balse marka isaga weerar ku soo qaado in shacooca ka imanaya space stationka aanu u suuraynayn inay shimbirtu soo guda gasho, isaga oo shacoocaasi dib u tuuraya shimbirta hakinayana.
maskularna wuxuu si degdega ugu noqonayaa xaruntii laabka waxaanu u sheegayaa doctor Mustafa arrintan iyada ah. Doctor Mustafana markuu uu kuurgalo sababta keentay tan wuxuu ogaanayaa space stationku inay sii daayaan shucuuc positive charge halka moobiladu ay ku charge garoobaan negative, waana sababta keentay in space stationku uu shimbirta dib u tuuro una diido inay soo guda gasho. Doctor Mustafa isagoo oo darsaya fiirsi badanna samaynaya wuxuu ogaanayaa in shimbirtan cadhaysani uurkeeda amba caloosheeda uu ka muuqanayo sawir weji qof oo ay ka muuqato cadaawad badani, wuxuuna garowsanayaa fahmayaana in arrinkan oo dhan uu ka dambeeyo bila'aadan sababteedana leeyahay. kadibna Dr. Mustafa wuxuu isku dayayaa inuu helo riboodyadii dhimashada ahaa ee dhacay sanadadii ugu dambeysay. Marka uu arko faylka dhimasho ee nin oday ah kaas oo iska soo daldelay Tower Mobile isagoo u qaadanaya in arrinkani la xiriiro ninka odayga ah ee isa soo daldelay. Intaa kadibna Dr. Mustafa wuxuu tagayaa goobtii ninkan odayga ku noolaan jiray isagoo oo wata aalad uu isagu gacantiisa ku sameeyay oo ah signal detector. maan telefoonadii la'aana wuxuu ka helayaa xayndaabka beerta ninkan gurigiisa, wuxuuna Dr. Mustafa activate garaynayaa aaladii gaadiidka ahayd ee uu watay ee signal baadhaha ahayd. isla markiibana waxa goobta ka muuqanaysa shimbirtii cadhaysnayd. aaladan la shidayna waxa ay sii deynaysaa positive charge taas oo neutralize garaynaysa negative charge-ka moobilada ama shimbirta, balse si lama filaan ah ayaa cillad farsamo ugu imanaysa aaladii intaan shimbirtii la burburin. kadibna shimbirtii waxay isku bedelaysaa una samaysmaysaa qaab sidii beedka oo kale ah. isla markiina waxa ka soo dhex baxaya beedkii walax muuq bila'aadan leh, muuqaas oo ah ninkii odayga ahaa ee dhintay wejigiisa, waxaana ka muuqata cadho iyo aargudasho inuu socdo. aaladii muuqa ninka weyn lahaydna waxay isku dayaysaa inay baabiiso meeshana ka saarto mishiinkii positive charge-ka sii deynayay, balse waxa ka hor istaagaya lana dagaalamaya muscular rabbit. aaladii uu ninka odayga ka samaysnaana waxa ay gelaysaa gudaha guriga isaga oo gacmaha kor u taagaya farxadna muujinaya. haddii aynu ku noqono ninkan odayga ah ee taawarka iska soo dardaray taariikhdiisii hore wuxuu ahaa nin ku takhasusay cilmiga shimbiraha ama otolojiga, waanu ku caan baxay. ugu horeynba markii ay hooyadii cusbitaalka ku dhashay wax neefsasho ah waa laga waayay ilmahan yar, dhimashaana lagu tirinay. marka si kadisi ay shimbirtu duulaysa ay daaqadda uga soo gelaysa cusbitaalka kuna fadhiisanayso laabtiisa, mucjisaanay noqonaysaa in ilmihii yaraa dib u neefsado. sababta awgeedna wuxuu ninkani naftiisa u hurayaa iyo wakhtigiisaba shimbiraha una hibeynaya. waxaase dhacday horumarka laga gaadhay tiknolojiga inay keento isticmaalka moobilada marba marka ka dambaysana uu isticmaalka foonku amba telefoonadu sii bataan iyada oo ay kordhayaan. sidoo kale taawarada telefoonadu radiationka ka soo baxayaana wuxuu sababayay inuu dhaawaco maskaxda shimbiraha, taas oo ku keenaysa shimbiruhu inay jihada u socdeen ka khalkhasho dhimashana ku keento. awgeed ninkan odaygaana wuxuu u istaagayaa inuu dadka ku wacyigeliyo inay yareeyaan isticmaalka moobilada, balse cid dheg jalaq u siinaysa ma jirayso, waana iska indhatirayaan hadalkiisa. ninkan odaygaana isagoo rajo la'aana ayuu naftiisa jaraya taawarkan iska soo daldelaya, balse muu rajaynayn marka uu dhinto in ruuxdiisa oo negative charge samaynaysa ay aargudasho daran u dhaqaaqi doonto, baabiin doontana tiknolojiga iyo moobilada. markana aynu u soo noqonno wakhtigan la taagan yahay. Dr. Mustafa wuxuu hagaajinayaa cilladiina ka saaraya aaladii gaadhiga ahayd ee uu watay ee sii deynaysay positive charge-ka, waxaana sii soconaya dagaalkii shimbirta iyo aaladan ka dhexeeyey. dhanka kale isla wakhtigaana muscular rabbit wuxuu difaacayaa Dr. Mustafa iyo gaadhiga aaladan ku xidhan tahay si uu uga badbaadiyo inaanay shimbirtu burburin dhanka kalena ka rogin. hase ahaatee intuu dagaalka kula jiro dhaawac ayaa ku imanaya isagoo bila awooda ayaanu dhulka ku dhacaya. laakiinse waxa goobta soo gaadhaysa isla markiiba gabadhii lagu magacaabayay Big Mountains, waxaanay samaynaysaa inay dib u repair garayso kana bedesho qaybihii dhaawacu ka soo gaadhay. wax lagu mahadnaqo ayaanay noqonaysaa muscular rabbit inuu dib u soo noolaado, dagaalkiina halkii kasii bilaabo isaga oo jaraya burburinayana. dabadaba guushan la gaadhay ee ah in shimbirtii la burburiyo lana qabto iyadoo awoodeedii la xakamaynayo, waxa mahaddeeda la siinaya suulkana loogu taagaya muscular rabbit sibad ballaadhan oo dawladdu u samaysay. waxaana Dr. Mustafa laga codsanayaa inuu kombiyuutarro sidan oo kale ah sameeyo mustaqbalka, balse taasi ma farxad gelinayso guddigii councilka ahaa ee markii hore diiday. nasiib darro wiil ka mida councilka oon ku farxin guushan uu gaadhay Dr. Mustafa ayaa habeenkii wuxuu u dhacayaa shaybaadhka Mustafa, waxaanu soo xadayaa processorkii isagoo oo sii deynaya shimbirtii. isla markaana Mustafa wuxuu hurdaa gurigiisii
waxaana hurdadii ka toosinaya dhawaqa cod telefoon oo soo dhacay. sidaaduu indhaha u kala furana lama filaan ayay noqonaysaa in qolkiisii oo dhan dabooleen telefoonno sentarkooda uu ka muuqdo wejigii ninkii odayg ahaa. kadibna gebi ahaanba shimbirtii xanaaqsanayd waxay la wareegaysaa maskaxdii iyo kontaroolkii Dr. Mustafa. waaba sidii oo remote lagu wado. Dr. Mustafa waxaa lagu arkaya in magaalada dhexdeedii suuqa isaga oo sita board ay ku qoran tahay baadi shimbiraha. isla markaana hadduu arko qof moobil ku hadlaya intuu xanaaqo ayuu la dagaalamayay dilayeyna sidii qof waalan. waxa goobta soo gaaraya Muscular iyo Big Mountains iyagoo isku dayay inay joojiyaan Dr. Mustafa. kastay xaaladdu u daran tahay, Muscular wuu diidayaa inuu weeraro Dr. Mustafa dhaawacna gaarsiiyo. waxaase dhacaysa ortology manki burburiyo siibsiibana Muscular Robit. sidaasay tahay wuxuu miyirkiisa u soo noqonayaa Dr. Mustafa waxaanu gaari dushii ku qorayaa 2.0 isaga oo faraya gabadhii Big Mountains inay geliso device cusub oo casri ah maskaxda Muscular Robit kana dhigaysa version ka awood badan tii hore. si degdega ayaanay uga howlgelaysaa gabadhii Big Mountains iyadoo aadaysa museumka si ay uga soo xaddo aaladan uu doktorku u tilmaamay ee 2.0 taasoo dib u programinaysa awood intii hore ka badanna siinaysa Muscular Robit. sidaasaanu Muscular Robit dib ugu soo noqonaya iyadoo intaa wixii ka dambeeya Muscular magaciisa loo bedelay 2.0 balse version-kan casriga ah ee loo bedelay Muscularkii ee 2.0 waxa uu dareemayaa farxad iyo rabitaan lamaane isaga oo sheeko iyo shukaansi ku bilaabaya gabadhii Big Mountains. laakiin Big Mountains ayaa xasuusinaysa in priority-ga iyo ahmiyadda uu siiyo siduu la dagaalami lahaa Ology Allman. waxaana dhacaysa in la sameeyo robiddo badan oo leh awood la mida awoodda Muscular muuqana kala siman. intaa kadibna ciyaar kubadda cagta ah ayaa lagu qabanaya stadiumka iyadoo ay u daawasho imanayaan dad gaaraya 80,000 oo qof. wuxuuna odaygii Argosiga u socday ka dooranaya dadkii daawanayay wiil ka mida councilka oo ah kii u dhacay shaybaarka Mustafa isagoo doonaya inuu dareensiiyo tusana sida radiationku ay u dhibaataynayaan bini'aadanka. qofkii dhammaana dambas uga dhigayaan ayaa wuxuu ku soo hagaya kuna xayndaabaya maayad danabeed aad u awood badan oo ka timi toweriska. halkii baanu ku dilaya. waxaana dhacaysa in odaygii dhammaan moobiladii dadka uu hago isagoo u adeegsanaya inuu albaabada iyo meelaha ay ka bixi lahaayeen ku xidho kuna bologareeyo si dadku meel ay uga baxaan u waayaan. ka hor intaanu aaladii odayga ahayd aanu bilaabin inuu dadka jarjaro laayana waxa si kadiisa u soo dhex jibaaxaya moobiladii kana soo dhex baxaya Muscular Robit. haddaba odaygii wuxuu damcayaa inuu isku ekaysiiyo sameeyana muuqii diktoorka si uu u baajiyo dagaalka uu ku wado Muscular. laakiin Muscular markan waa casri kamana yeelayo dibna ugama istaagayo ee uu la dagaalamaya. amay farsamadaasi u shaqayn weyday wuxuu samaynayaa odaygii inuu dhammaan moobiladii u bedelo Robitis si ay u weeraraan Muscular Robit. Muscularna wuxuu furayaa shooc magnetica oo aad u awood badan taas oo soo jiidanaysa dhammaan qoryihii amba hubkii ay haysteen askarta stadiumka ku sugan. kadibna markay qoryihii badnaa iskugu yimaadaan isaga laftarkiisii ayaa qori isku bedelaya. waxaanu ku rasaasaynaya amba ku ridaya Robitiskii yaryaraa ee soo weeraray. dhammaantoodna wuu burburinaya meeshana uu ka saaraya. kadibna shimbirtii xanaaqsanayd ayaa soo degaysa iskuna dayaysa inay weerarto Muscular Robit. Muscular Robitna wuxuu amar siinayaa dhammaan robidadii kale ee isaga la midka ahaa ee Dr. Mustafa uu sameeyey iyaga oo intay isku yimaadaan samaynaya kubad camal olol iyo dabna bixinaysa. kubaddii oo ordaysa ayaana weerar ku qaadaysa shimbirtii. laakiinse fikradaasi uma shaqaynayso sidii la rabay. waxaanu Muscular isku dayayaa inuu Plan B isticmaalo isagoo Robitiskii u bedelaya inay isku xirxirmaan sameeyaana cage isku xayndaaba shimbirtii weyneyd oo daba. marka ay shimbirtii dabinkii soo gasho dhammaan robidadii waxay sameynayaan inay rasaaseeyaan xabadna ku ridaan iyaga oo u moofaynaya sidii hilib oo kale. sidaasay tahay taagtikadani haddana waxba kama tarayso shimbirtii. waxayba ku sii kordhinaysaa shimbirtii cadho hor leh iyo cadaawad. waxayna shimbirtii isku bedelaysaa qaab bili'aadan oo samaynaysa muuqii diktoorkii dhintay isla markaana dherer ahaan ah 100 mitir. dhanka kale Muscular Robit mar kale ayuu dib u activate gareynayaa magnetic field-kiisii isaga oo soo jiidanaya dhammaan shayadii ka samaysnaa biraha ee ku hareeraysnaa si uu sameeyo Robit aad u weyn lana dheerarsan kan shimbirta oo kale. isla markay gacan qaad iyo dagaal hor le iskaga hor yimaadaan dhowr jeerna uu garaaco ninkii weynaa Muscular awood darra ayaa ku dhacaysa. dab ayaana qabsanaya
si uu uga badbaadona wuxuu qaadanayaa fikradda ah inuu dib isku deactivate gareeyo magnetickiisina meesha uga saaro kadibna wuxuu dhex gelayaa shimbirtii isaga oo raba inuu ku dhex burburo shimbirta gudaheeda dabaradeedana jaro se qorshahaasi mid shaqaynaya ma noqonayo isna waayo muscular waxa ku dhacaya battery low shimbirtina waxay isku beddelaysaa shimbiro yaryar oo badan oo baalale duulaya iyaga oo weeraraya robotiskii kale ee muscular xaggiisa ka socday waanay baabiinaya daqiiqadaha ka bacdina waxay shimbirtu isku dayaysaa inay soo jiidato kuna soo hagto maayado aad u awood badan oo danabeed si ay ugu burburiso dhammaan istaadyoonka iyo waxa ku jiraba wax yar ka hor intaanu odayga dilin muscular robot waxa goobta soo gaaraya robotis yaryar oo badan oo duulaya shimbirna dul saaran kuwaas oo ka yimi goobtii laabka iyaga oo weerar ku qaadaya shimbirtii weyneyd kana baajinaya inay disho muscular si habsami leh ayaanay u soo gaarayaan robotiska yaryar ee badan ee shimbirta dul saaran haddaba odaygan weyn amba shimbirta weyn ee cadaawadu ku jirto wuu ka istaagaya inuu dagaal kala hortago robotiskan yaryar ee saaran shimbirta waayo wuxuu diidayaa inuu shimbirta dhaawac u geysto balse waa qorshe khiyaamo ku jirto oo uu sameeyey Mustafa kadibna odaygii aargoosanaya wuxuu meesha ka saaraya maayadihii danabka ee ku soo xidhnaa garoonka si shimbiraha u badbaadiyo isla waqtigaana waxa garoonka soo gaaraya gabadhii lagu magacaabayay Big Mountain oo wadata gaari xamuula oo ay ka buuxaan robida yaryar waxayna ku sii deynaysaa garoonka iyagoo isku beddelaya qaab moobil weerarayana moobiladii kale ee uu xukumayay shimbirtu amba ninkii odaygaha iskii yaryaraana markay dhex galaan moobiladii kale raxyo waaweyn ayay samaynayaan taasoo furaysa albaabadii xidhnaa ee garoonka isla markaa baalasha ayay ka jarayaan shimbirtii weyneedna dadaalkeedii ugu dambeeyey ayay soo qaadaysaa kuna weeraraysaa muscular robotna wuxuu ridayaa xabado uu ku ridaynayo shimbirta si uu u baabi'iyo laakiinse si lama filaana ayaa waxa u soo gelaya dhexdooda gabadhii Big Mountains lagu magacaabayay iskuna dhigaysa xabadaha shimbirta lagu hagayo iyada oo xidhan bulletproof ama jaakada xabada iska caabisa ugu dambeynna waxa dhacaysa in Dr. Mustafa uu la wareego gebi ahaanba controlkii shimbirta iyada oo loo duulinayo laguna hagayo goobtii space stationka ee bixinaysa shucuuca positive charge-ka ah halkaasoo gebi ahaanba shimbirtii lagu baabiinayo lagana takhalusayo kadibna waxa dib loogu reprograminaya muscular robotkii versionkii hore ee uu ahaa halka Dr. Mustafa la dhigayo cisbitaalka daweyn ka bacdina wuxuu ka baxayaa xaaladii darnayd caadi baan ku soo noqonayay caafimaadkiisu cisbitaalkana waxa ku soo booqanaya wasiirka arrimaha gudaha isaga oo u ballan qaadaya in la yareyn doono isticmaalka moobilada si meesha looga saaro in wax la yeelo abuurada kale ama makhluuqaadka kale ee radiationka moobiladu dib soo gaarsiiyaan si fiican oo xora noloshuna u noqoto mid lagu raaxaysto fadlan daawad haddii aad nagu cusubtay subscribe saar like-na saar si aad kugu sahlanaato muuqaalada dambe ee cusub eenu soo dhigno inaad hesho mahadsanid